Salaamu calaykum. Ka waran haddii adigoo wadada iska socda uu ninkaas horbaxo kugu yiraahdo waa imisa saac, isla markiiba waxaad u sheegaysaa labada duhurnimo ama 10 subaxnimo adigoo eegaya saacadaada. Haddaba ma ogtahay in Soomaaliya ka hormari karto waqtigaad haddeertan sheegaysa? Mise ogtahay in waqtigu aadanuhu sameeyo iskuna waafaqo goor aan fogeyn? haddaba aan kuu sheego sababtay ku dhici karto midaas. Shir ka dhacay magaalada Washington ee dalka Mareykanka 1884 ayaa lagu go'aamiyay waqtiga aan maanta isticmaalno. Sidee yani 1884 ka hor waqti iyo saacad maanu jirin? haa waa run, dunida ilbaxnimo horey lahayd, saacado iyo waqtina waa la isticmaali jiray, laakiin maysan ahayn kuwo la isku waafaqsan yahay oo magaalada ku xigta war umaysan haynin. xilliga muusan jirin waqti la isku waafaqsan yahay, magaalo walbana waqti gooni ah bay isticmaali jirtay. wixii ka dambeeyay 1800 dunida galbeedka waxaa ka dilaacay kacdoonkii warshadaha, taasoo horseeday in la ikhtiraacay tareeno iyo telegraph iyo aalado badan oo casri ah. run ahaantii tareenadu way dheereeyaan, waxayna in badan soo gaabiyeen waqtiyadii safarka la sugi jiray, taasoo abuurtay jahwareer ku saabsan saacadda. taasi waxaa ka daran telegraph oo waraaqihii muddo la sugi jiray soo gaabisay daqiiqadana ka dhigtay, waxayna dowladaha xilligaa jira go'aamiyeen in waqti la isku waafaq loo baahan yahay. shirkii Washington ee dhacay 1884 waxaa lagu go'aamiyay in magaalada London gaar ahaan xaafadda Greenwich noqoto bartamaha dhulka ee kala qaybiya longitude si loo qeexo habeen iyo maalin. wareegga dhulka oo 360 digrii ahaa ayaa loo qaybiyay 15 digrii walba 1 UTC si ay u noqoto 24 saac. sidaa darteed meeraha dhulku wuxuu lahaanayaa 24 UTC oo wixii London bariga ka xiga uu lahaanaya +1 +2 +3 ilaa 2 UTC, halka wixii galbeed ka xiga London uu noqonayo -1 -2 -3 ilaa -12 UTC. wixii ka horeeyay 1884 dunidu waxay lahayd wadamo iyo magaalooyin aan ku salaysnayn xariiqdan markan la jeexay. sidaa darteed dhibaatooyin cusub soo baxay. waxaa soo baxay wadamo iyo magaalooyin dhexmara xariiqyadan, kuwaas oo u sameeyay saacado kala duwan. haa waa hal magaalo laakiin leh 2 saac oo kala duwan. tusaale ahaan magaalada Phoenix ee dalka Mareykanka waxaa dhexmaray xariiqda kala qaybisa -7 and -8, taasoo magaalada u yeeshay 2 saac oo kala duwan. sidoo kale magaalada New York ee dhexmaray xariiqda kala qaybisa -4 and -5. sidaa awgeed Mareykanka wuxuu go'aansaday magaalada Phoenix inay qaadato -7, halka New York qaadanayso -4 UTC. ka gudub taas, waxaa jira wadamo kale oo badan oo farageliyay GMT-ga, waxaana ka mid ah Spain oo ahayd inay isticmaasho +1 UTC laakiin si siyaasadaysan u isticmaashay +2 UTC. waxaa kaloo ka mid ah waddanka China oo ahayd inuu isticmaalo 5 waqti oo kala duwan laakiin isku soo koobay hal taasoo ah +8 UTC. sidaa awgeed magaalada ku taala galbeedka China ee Kashgar waa haween mugdi ah ilaa laga gaaro 10 subaxnimo ama 4 saac sidaad u taqaanaan. si guud 15 digrii walba wareegga dhulka ka mid ah waxaa loo qaybiyaa 1 saac. haddaba maxaa loo isticmaali waayay wax ka yar 1 saac sida nus saac ama 15 daqiiqaba? haa way jiraan wadamo isticmaal wax ka yar 1 UTC sida Hindiya oo ahayd inuu isticmaalo 3 waqti oo kala duwan laakiin uu iska soo koobay hal kaasoo ah +530 UTC. sidoo kale waxaa ka mid ah waddanka Nepal
oo ay India diris yihiin kaasoo saacadda India ku darsaday 15 daqiiqo kaliya waxay noqonaysaa +5:45 UTC. waxaa kaloo ka mid ah waddanka Iran oo ka dhigtay +3:30 UTC. sidoo kale Afghanistan oo diris la ah Iran kaasoo ka dhigtay +4:30 UTC. waddanka New Zealand ayaa ka mid ah waddamadii farageliyay saacadda kaasoo ka dhigtay +12:45 UTC oo noqonaysa mid ka mid ah waddamada ugu horeeya ee qorraxda u soo baxda. taasi waxaa kaaga sii daran jasiiradaha Kiribati oo ahayd inuu isticmaalo -12 UTC kaasoo ahayd inuu noqdo waddanka ugu dambeeya ee maalinka ayaa wuxuu ka dhigtay +13 UTC ama +14 UTC si uu u noqdo waddanka ugu horeeya ee qorraxda u soo baxda. haddaba ma is leedahay inay jirto +14 UTC? waddanka ugu saacadaha badan waa Faransa sababo la xiriira dhul badan oo gumaysta oo ku yaala daafaha caalamka. haddeertaan Soomaaliya waxay ku jirtaa saacadda bariga Afrika oo ah +3 UTC. haddaba iga jawaab, Soomaaliya ma ka guuri kartaa saacaddan +3 UTC oo ma u guuri kartaa +3:30 oo 40? George Hudson oo ah khabiir New Zealand u dhashay kaasoo ku takhasusay cilmiga deegaanka ayaa 1895 sheegay in gobollada waqooyi iyo koonfurta dhulka xiga in xilliyada guga uu maalinkii dheeraado deertana sidiisa caadiga ah ku soo laabto. sidaa darteed wuxuu soo jeediyey in la isticmaalo daylight saving time ama saacadda xagaaga si hal saac loogu daro waddamada waqooyiga iyo koonfurta dhulka ku yaalo, taasoo goor dambe la qaatay. UTC waa Coordinated Universal Time taasoo u dhigmata hal saac ama awa, laakiin sida saacaddii oo kale isma beddesho. tusaale ahaan UTC-ga Soomaaliya waa +3 weligeedna waa +3 oo isma beddesho. haddaba waan ogahay inaad xisaabta neceb tihiin, laakiin in yar aan idinka taataabto bal. wareegga dhulka oo 360 digrii ah haddii aan u qaybin 24 UTC ama saacad waa 15 digrii. sidaa awgeed 15 digrii walba waa 1 UTC ama hal saac. tusaale ahaan aan soo saarno bal saacadaha magaalooyinka Muqdisho, Tokyo iyo New York anagoo eegayna saacadda London oo ah 2:15 duhurnimo. markaad fiirisid xariiqmanka dhulka loo sameeyey magaalada Muqdisho waxaa marta xariiqda 45 degree east, sidoo kale Tokyo oo marta xariiqda 135 degree east. New Yorkna waxaa mara 75 degree west. east waa waxa London bariga ka xiga waxayna qaataan plus, halka west oo ah waxa London ka xiga galbeed oo ayadana qaadata minus. Muqdisho markaad 45 degree east u qaybisay 15 degree waa +3 UTC. Tokyo iyadana 135 degree east markaad 15 degree u qaybisay waa +9 UTC. halka New York oo 75 degree west ah aad u qaybisay 15 degree waa -5 UTC. sidaan hore idinku sheegay 15 degree walba waxay ka dhigan tahay 1 UTC ama hal saac. haddaba London hadday tahay 2:30 PM ama 2:15 duhurnimo waxaad ku dartaa 9 si aad u ogaatid saacadda Tokyo, taasoo noqonaysa 11:30 ama 11 habeenimo. sidoo kale New York hadday saacadda London tahay 2:15 duhurnimo waxaad ka jartaa 5 UTC oo ah saacad New York, taasoo noqonaysa
9:15 subaxnimo. bal isku day kalkaaga. hadday London tahay 2:15 duhurnimo, waa imisa sac Muqdisho oo ah +3 UTC.